kulan seher sare loo soo agaasimo isla qaateen safiirka dhawaan ay dawladda federaalka Soomaaliya u soo magacawday dalkani Koonfur Afrika culimadiin waxgarad ganacsato ururka haweenka kan dhalinyarada ayaa waxa lagu qabtay xaafadda ay Soomaalidu deegaan ahaan ugu badan tahay Mayfair magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika kulankan oo ujeedkiisu ahaa in safiirka Soomaaliya ee Koonfur Afrika uu fadhiyo Sayid Xasan Shariif Cabdullaahi oo maalmihii ugu dambeeyay kulamo isdaba joog ah la yeelanayay dawladda Koonfur Afrika inuu uga warbixiyo jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika waxyaabihii uu qabsoomay isagoona safiirka khudbad dheer u jeediyay kulankani kaga hadlay arrimo muhiim u ah Soomaalida ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika ma dhici doonto mar kale in qof inta xoolihiisa la dhaco kadibna liskaga aamuso aan lala hadlin oo liskaga tago oo sidaas ay ku dhamaato ma dhici doonto insha Allah ma dhici doonto in gabadh Soomaaliyeed in dalkan ayadu siday ku tin Ilaahay u yahay inta la farxumeeyo kadibna mataqaana taariikh aan isaga daba tagin ay noqoto sidaa lagu ilaawo dib dambe ma dhici doonto insha Allah kulankan ayaa waxa sidoo kale ka hadlay waxgaradkii ka soo qayb galay iyagoona dhammaan u mahad celiyay safiirka iyo guddiga qabanqaabada safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay dalkani Koonfur Afrika iyagoona kula dardaarmay in uu safiirka cadaalad ugu shaqeeyo dadka Soomaalida ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika waxaan jeclahay inaan halkan kaga faa'iideysto maadaama aan ku hadlayo magaca odayada Soomaaliyeed inaan tacsiin u diro oday Soomaaliyeed oo suldaan ah oo shalay ku geeriyooday magaalada Nairobi oo ah Sultan Abdi Sultan Ali Sultan Ahmed Ali Sokor waxaan leeyahay uga baryayaa in uu jannadii maxayaaday geeyo eheladiisina uu ka siiyo samariyeyma marka ugu horeysa dawladdu abaal weyn ban martay dhankeeda ka tirsanayna sababtoo ah waxaan nahay wadankii ugu horeeyay oo ay xusto oo ay safiir u soo dirto waxay mudan tahay sacab runtii isku soo wada duubo safiirkan cusub ay dhawaan dawladda federaalka Soomaaliya u soo magacawday dalkani Koonfur Afrika ayaa looga fadhiyaa sidoo wax uga qaban lahaa tacdiyada joogtada ah ee loo geysto dadka Soomaalida ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika iyo sidii ay u heli lahaayeen dukumeenti ay ku socdaalaan Cabdinaasir Soomaali Universal TV Johannesburg